السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan jeclahay inaan wax ka dhaho waxay tahay cudurka maalmaha faafay COVID-19 ama coronavirus. walaalayaal aniga iyo adiga qof kasto daawanaya qof jecel ma jirto xanuunka iyo dhibaatada iyo geeridaba inkasto ay tahay wax xaqiiq ah oo dhacayso qof kasta ku dhacayso. laakiin waxa loo baahan yahay waxay tahay qof kasta naga mid ah inuu sameeyo ka hortag una dhageysto talooyinka ay bixinayaan dhakhaatiirta si cudurkan uu u faafin iyo wixii la mid ah. nafteena waxay nagu leedahay waxay tahay xaq dadka nool waxay nagu leeyihiin xaq. إذا النبي صلى الله عليه وسلم بدل وحوده وحي تداوي يا عباد الله إزداوية داود waxaa kamid ah inaad ka hortagtid cudurka inuu san faafin dadka uusan u gudbin iyo wixii la mid ah sababtoo cudur halis ah dhibaato badan u keen garab bulshada iyo anagaba iyo wixii la mid ah lidalik walaalayaal on khataab wuxuu dhigi jiray waxay tahay waxaan ka ordaynaa qadarta Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaana u ordaynaa waxay tahay qadarta Ilaahay subhanahu wa ta'ala adduunkan kama dhacayo illa Ilaahay waxay doonay subhanahu wa ta'ala maahane laakiin qofku waxa loo baahan yahay muslimka ah inuu daawada iyo ka hortaga uu sameeyo in badan si uu naftiisa u badbaadiyo bulshada la nool taa waa talada koowaad. talada labaad waxay tahay walaalayaal ducooyinka iyo alla u dhawaanshaha inaan badino insha Allah ta'ala iyo sidoo kale biidna talooyinka dhakhaatiirta waxaa kamid ah inkastoo aan dhakhtar aan ahayn in la ilaaliyo nadaafada gacmaha in la dhaqo si fiican muddo 30 sekondi wixii la mid ah iyo qofka inuu ku dadaalo markuu hindhisay oo kale inuu ku hindhiso dadka agtiisa uusan ku hindhisin sidoo saasama uu sameyn jiray markuu hindhisayo inuu warqad ama dhar ama wixii la mid ah waa si gooni u tahay inuu ku hindhiso isla markaa uu ka ilaaliyo dadka. wadamooyin badan waxay amreen ama ay kula talin dadka inay hadee gurigooda joogaan ay joogaan ayadoo ilaalinayo cudurka inuu faafo. waa tolin wanaagsan aan u hoggaansanno insha Allah ta'ala gurigeena aan joogno ehelkeena waqti la qaadano caafimaadkeena aan ka fikirno isla markaana waqtigeena aan ka faa'iideysano Ilaahay subhanahu wa ta'ala naaf aan weydiisano insha Allah ta'ala ma tanidin.